بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسيدنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي هو مبارك محمد فارح أما يتشينير أمير محمد فارح أما يتشينير أمير نوغليير كرباش waxaan ahay wasiirka nuclearka jamhuuriyadda Somaliland ee isagu ismagacaabay waxaan halkan ka codsanayaa maanta baaqaygan in la gaarsiiyo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland dadweynaha igu xidhan ee tirada badan ee malaayiinta sare u dhaafay iyagana waxaan leeyahay fariinteeda inaydan dhayalsanin oo aad gaarsiisaan madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane madaxweyne waxaan ka mid ahay dadka sida weyn ku taageerayay waxaan ka mid ahay dadkii ku hoos dhashay halgankaagii waxaan ka mid ahay dadkii aad naftooda iyo dhiigoodaba aad u hurtay naftaada iyo dhiigaaga waxaan ka mid ahay dadka aadka u jecel qarankooda jamhuuriyadda Somaliland waxaan ka mid ahay dadka nacab midnimada iyo waxyaabaha laga sheekeeyo waxaan adiga kugu xushay mudane madaxweyne hal adayg iyo geesinimo iyo dulqaad iyo gobonimo waxaan u halganay oona halgandheen u galay sidii aad dalka u hanan lahayd waxaanu gacan weyn ka geysanay mid af iyo mid dhaqaale iyo mid muruq iyo mid xoogba sida xisbiga kulmiya uu u hanan lahaa hoggaanka ugu sarreeya ee dalka jamhuuriyadda Somaliland waxaan ogahay in doorashadaadii ay ahayd doorasho xor iyo xalaal waxaan ogahay inay maanta Somaliland marayso meel beesha caalamku ay indhaha ka qarsan kari weydo waxa uu dambeeyay Mareykanka oo baaq ku soo saaray in afti dadweyne mar labaad laga qaado jamhuuriyadda barakaysan ee Somaliland waxaan hoos ugu noqonayaa waxqabadka madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane madaxweyne maalinta dalka timi dalku wuxuu galay xaalad qabiilaysan waxaad ka saartay xaaladii adkay jeelasha dalku way ciirciirayeen oo waxa ku jiray malaayiin qof dhammaantood waxaad ka sii daysay xabsiyada waxa aad yaraysay oo aad joojisay dhuuni qaatayaashii maalin walba laba reer isku diri jiray ee laba reer dhiigooda daadin jiray oo taasina aanay dhicin intii aad kursiga joogtay waxa aad fashilisay dhammaan siyaasiyiintii kursi ku dhiglayaasha ahaa waxa aad ka hor timi nin allaale iyo ninkii cuni jiray hantida dadweynaha oo aad maxkamadaha keentay raggii baasaday dalkan iyo dadkanba waxaad xabsiyada ka sii daysay maxaabiis fara badan oo Soomaaliyeed oo Somaliland waxaad xabsiyada ka sii daysay dad 20 sano iyo 30 sano ku xidhnaa dhiigag ay galeen iyo dambiyo falal ka amni darro ah ayaad sii daysay waxaad ku dhiiratay maxaabiistii burcadbadeeda ahayd ee lagu qabqabtay badaha Soomaaliya ee Somaliland ku xidhnaa inaad awood madaxweyne ku sii daysay waxaad ka midho dhalisay himiladii iyo hadafkii ummadda reer Somaliland waxaad soo celisay kalsoonidii dhalinyarada reer Somaliland waxa aad beertay oo aad maanta midhahoodii la guranayaa ubaxii adigu aad sababta u ahayd ee isbeddelka muuqda ee 2021 waxa maanta dalka Somaliland ka hirgalay doorasho aan adduunka ka dhicin waxa aad
diiday quursiga, waxaa diiday in lagu xariiqo waxa aad doonayso, waxaa diiday dalkaaga iyo dadkaaga inaad ka doorato biniyaad lacagay, waxaa diiday inaad ummadaada tusto inay isku tashan karaan aan loo talin karin. waxaan kuugu mahad celinaynaa sida wanaagsan ee quruxda badan ee karaamada leh ee aad u maamushay imika aad odayga uga noqotay doorashada imika dhacday oo si xor iyo xalaal ah u dhacday. waxa aad qaadatay go'aankii ugu qaraadhaa ee aanu qaadan madaxweyne afrikaan ah oo ah madaxweyne diiday iyadoo xisbigiisa laga badiyey golayaasha deegaanka iyo golayaasha baarlamaankaba, diiday inuu fidno abuuro, diiday inuu mudaharaada dhigo, diiday in carruurtiisa ku dhammaadaan oo ku dhintaan, diiday inuu shacabkiisa iyo ciidankiisa iska horkeeno. awood baad u leedahay dalka dhammaantii inaad gacanta ku qabato, laakiin waxa aad ka doorbiday wanaagga iyo midnimada ummadda reer somalilan iyo sharafta qarankeena karaamada badan ee cisiga badan. waxa aad mutaysatay bilad geesi, bilad sharaf, waxa aad mudan tahay maanta nin ragina waa og yahay, nacasna loo sheegi maayo. waxa aad meel ku soo xidhay calooshooda shaqaystayaashii, laba wajiilayaashii iyo qof kasta oo qaranka somalilan hagardaamo ku ah. waxa aad laba laabtay oo aad heerkii ugu sarreeyay gaadhsiisay wax soo saarka dalka. waxa dalka aad ka qabatay musuq maasuq, sixir bararkii, cadaalad darradii, mid jeclaysigii iyo eexdii, qurinkii iyo qabyaaladii. waxqabadka dalka waxa aad noqotay madaxweynihii ugu horreeyey ee dhisay kulliyado dalka gudihiisa ah oo bixiya darajada sarkaal ilaa gaashaanle ilaa general. madaxweynihii ugu horreeyey ee ku dhiiraday ayaad noqotay. waxa aad noqotay madaxweynihii abuuray dhallinyaro la carbiyey oo qarankooda aan qiimahooda ogeyn oo maanta qarannimada iyo qarankooda wuxuu yahay garanaya, oo aad gelisay kulliyadda layli sarkaal loo yaqaano oo la yidhaahdo qof waliba waa og yahay, qof walibana waa garanayaa, waa dhallinyarada ciidamada ah ee aad geysay ee aad adigu tababartay. waxa aad samaysay kulliyado aad u tiro badan. waxa aad maanta soo saartay hablo iyo wiilal qurux badan oo adduunka indhahooda soo jiitay oo ku labisan xidigo, aliflayaal, gaashaanle dhexe, gaashaanle sare oo aad u qurux badan. waxa aad madaxweyne meel wada ka saartay cid kasta oo qarankan hagardaamo u geysanaysa. waxa aad qabatay maanta wixii ugu badnaa ee madaxweyne qabto. biriishyada dalka, biriishka dacar buruq waxaa ku dhiman jiray sanadkii in ka badan 500 oo qof, adduunyo ka badan 10 milyan ama 20 milyanna waa ku baabi'i jirtay. madaxweynihii u horreeyey ee maanta dalka biriijya isku xidha qabtay ayaad noqotay. waxa aad noqotay madaxweynihii dalkan intuu hayay uu dalku xasilay guntii iyo gabagabadii. mudane madaxweyne, aniga oo og inaad mar labaad hananaysid kursiga madaxweyne, aniga oo og in ummadaadu aad ku jeceshahay, aniga oo og in qarankan aad tahay indhihiisa koobaad, aniga oo og inaad tahay dhallinyarada somalilan aabbahooda ilaahay u soo diray, aniga oo og inaad tahay madaxweyne karaamo badan, dulqaad badan, cayda u dulqaata, afxumada u dulqaata, mid kasta oo caaya iyo mid kasta oo nacana wanaag ugu bedela, aniga oo og inaad maanta ka doorbiday qabiil qaran, aniga oo og inaad tahay madaxweyne ku hirasho leh, ku dayasho leh, oo ummaddu somalilan
iyo maanta beesha caalamka iyo adduunkuba ay hambalyeynayaan aniga oo og inaad tahay shakhsi dadnimo wanaagsan karaamo wanaagsan dhaqan wanaagsan oo afkii iyo dhaqankii mid walba iyo diintii iyo dimuqraadiyaddii iswaafajiyey aniga oo og inaad tahay madaxweynahayaga qaranka jamhuuriyadda somalilan aniga oo og inaad tahay haliyey ku suntan taariikhda jamhuuriyadda somalilan waxaan kaa codsanaya maadaama oo aan ahay gacantaadii koowaad aniga oo ah shakhsi aad iyo aad kuu taageera aniga oo ah ninkii 300 ee magacay wanaagsan kuu bixiyey aniga oo ah ninkii kuu bixiyey muuse aaba muuse baylood oo maanta lagugu heeso aniga oo ah ninkii kuu bixiyey aaba muuse oo maanta cid walba aaba muuse ku leedahay aniga oo ah ninkii kuu bixiyey muuse damal aniga oo ah ninkii kuu bixiyey muuse gaydh aniga oo ah ninkii kuu bixiyey muuse rooble aniga oo ah ninkii kuu bixiyey muuse naga dhalay aniga oo ah ninkii kuu bixiyey haliye naga dhalay aniga oo ah ninkii lahaa walle naga dhalay waxaan kaa codsanaya mudane madaxweyne weligay madaxweyne ma arag weligay madaxweyne ma salaamin weligay iyo allahay madaxtooyada somalilan maalin baan galayo kadinka markaanu maraynay oo weliba xilligii daahir riyaala ah oo raggii aan la socday la casuumay ayaan aniga telefoon ii soo dhacay markaasaan dib u noqday kadinka madaxtooyadan ka noqday waxaan ahay nin dalkiisa jecel dadkiisa jecel calankiisa jecel qarankiisa jecel naftiisa ka jecel calankiisa oo meel walba iigu xidhan mid dusha iga saaran mid aan afka ku sito mid dusha aan ku sito calankayga jamhuuriyadda somalilan waxaan ahay muwaadin xaq u leh in la qiimeeyo oo baaqiisa laga soo jawaabo waxaan ahay nin ka mid ah akaadiriyiinta ugu waaweyn ee xisbiga kulmiye waxaan ahay nin ilaahayna aanu qarin taariikhduna qarin magaciisuna aanu qarsoomin ayaana waxaan ahay nin ah dhashii aslam weliba dhashii raggii ugu cuslaa ay dhaleen ka midaba waxaan ahay shakhsi jecel somalilan qurux badan dal qurux badan dad qurux badan calankayaga oo dunida ka wurwudha ciidankayaga karaamada iyo qadarinta iga mudan ee faraha weyn leh oo aan ku faano shakhsi jecel xitaa inuu ku dhex noolaado ayaana mudane madaxweyne waxaan kuu soo dirayaa baaqaygii ugu horreeyey oo aan kaaga codsanayo aniga iyo libaaxyadaan dhalay inaanu kula kulanno libaaxyadaan dhalay markaan ku leeyahay waa aniga iyo inamadayda aan halkaa waxa weeyaan ku wada dabaal degna oo aniga iyo inamadeedu waxaanu ka simannahay taageeradaanu kuu qabno inamadeedu madaxweynaha keliya yaqaanaan baata madaxweynaha keliya ay u abtiriyaan baata madaxweynaha keliya ee marka ay tv-ga ka arkaan ay wada fadhiistaan oo yidhaahdaan aaba muuse ayaa hadlaya ayaa tahay waxaan jeclaan lahaa oo aan kaa codsanayna aniga iyo nimankay aan dhalay ee somalilanderka ah inaanu kula kulanno inaanu ku mahad celinno inaanu kugu mahad celinno wanaaggaaga karaamadaada iyo sharaftaada waxaan maanta ku faraxsanahay inaad baaqii cabdikariin axmed mooge liibaan aad si deg dega uga soo jawaabtay waxaan codsanayaa inaad anigana baaqayga maadaamaan ahay shakhsi waxa weeye halgankii uu kuu maray xitaa dhiiggiisu u daatay halgankan kuu maray xitaa waa u dhaawacmay anigu in ka badan 3 jeer baan u dhaawacmay kuugu tar sheegan maayo haddaan nafteeda xitaa kuu gooyo xaq baad u leedahayoo shalay baad naftaada ii sadqaysay markaa dowladdii cududa weynayd aad u babac dhigtay
bastoolad sidan adaan qori sidan maalintii Jabuuti ayaan meesha la yiraahdo Dubai jiingada yar ku jirtay muddada 25 cisho ah maanan ilaawin maalintii Jabuuti lagu xidhay maanan ilaawin maalintii dilka toogashada lagu xukumay maanan ilaawin maalintii ciidankii lagu keenay kala makaba sarkaala ay adiga kugu raadeen adigu digtoorow maanan ilaawin jiibadii aad wadatay maanan ilaawin dhaawacaadi maanan ilaawin geesinimadaadii maanan ilaawin kartidaadii maanan ilaawin qaranka waxaad u soo martay maanan ilaawin shuruucdii aad dalkan u dejisay maanan ilaawin inaad baarlamaanka adigu maanta Somaliland ee jira aad mas'uul ka tahay maanan ilaawin inaad Somaliland nabadeeda kow ka tahay maanan ilaawin inaad maanta dimuqraadiyadeeda adigu gacantaada mar labaad ku dhalisay maanan ilaawin inaad ku suntan tahay shakhsi kasta oo Somaliland dhiigiisa maanan ilaawin shakhsi kasta oo quluubtiisu tahay Somaliland inaad ku dhaxnoosh waxaan ka codsanaynaa mudane madaxweyne oo codsigaygu maanta yahay baaqayga inaad ka soo jawaabto waxaan jecelahay inaan noqdo inaad noqoto madaxweynihii ugu horeeyay ee aan salaamo waxaan jecelahay inaan noqdo ama aad noqoto madaxweynihii ugu horeeyay ee aan meel la fadhiisto waxaan jecelahay inaad noqoto madaxweynihii ugu horeeyay ee taariikhda intaan noolaa 30 jir baan imika ahay madaxweynihii ugu horeeyay ee aan gacantiisa salaamo ayaan doonayaa inaan noqdo waxaan doonayaa inaan noqdo shakhsigii maalintii ugu horeysay oo aan madaxtooyo galo oo aan gudaheeda arko oo aan kursiga madaxweynahayga arko waxaan jecelahay mudane madaxweyne inaad codsigayga ii tixgeliso anigoo oo muwaadin anigoo kamid ah kadariyinta xisbiga kulmiye anigoo oo kamid ah doorashadii hore ee baarlamaanka 2005 raggii ugu badnaa ninkii soo saaray ee magaalada